saarayaan ay ku base garayaan dhaqamadooda iyaga inta badan dadka ay leeyihiin 48 hours baan u qabanay kadib baa la oran karaa waa missing ama qof la la'yahay waxa aan aragnaa waa qof maandooriye isticmaala qof waalid ka carooda qof iska taga saas oo kale laakiin anagu qof mas'uula oo ummadii hal doorkeeda ahayd runtii markaan aragnay oo de dhaqan weligii aan ka surtoobina halkii saac gudihiiba ama hooyo la hadli jiray ama xaaska ama masaajidka ama de nin maxamed waxaan ku naqaanay saqle telefoonada qaban jiray markaan aragnay sheekhi in wax jabaka aan laga hayn oo baabuurkiisu meesha uga tagay annaga shuruucdooda ma baanan sii tixgelina dareen baana fuulay arrin marka iyada waxaa jirta dareenka naga kor u sii qaaday oo de kolley mudan in la sheego sheekha markii la la'aa maalinkii la waayey fiidkii saacaddu markay ahayd 7:10 siduu noo sheegay walaalka telefonkiisa laga soo wacay baa sheekha telefonkiisii waxaa laga soo wacay walaal ka mid ah bulshada Soomaaliyeed walaalkiina waan la fariisanay anagoo daladii masaajida iyo ehelkii iyo community leaderskoodii ama hogaamiyaashoodii waan wareysanay walaalku wuxuu noo sheegay sheekha telefonkiisa in laga soo wacay su'aal baan weydiinay waxaan niri numberka sheekha miyaad haysay ma laga yaabaa meel kale laga soo wacay wuuna tusay imaam masjid Abu Hurayra Sheekh Maxamed Xasan baa ugu qoran maxaa lagu yiri baan niri wuxuu noo sheegay in luqadda la hadlay kadibna waxyaabo uu wax badan ka fahmi waayey oo ku saabsan lacag iyo wax saas oo kala ah lagala hadlay marka walaalku wuxuu noo sheegay in uu sheekha ku yiri ilan isagii buu moodayaa inuu la hadlayo iga daa luqadda Ingiriiska Soomaali buu hadal oo macnaheedu dad is yaqaano kaftamaya kadib wuxuu yiri waxaan ku yiri miyaad xanuunsan tahay codkiisii ma ahayn inta wixii ka dambeeyay telefonkii waa la damiyay waana la dansaday oo markaan ku celiyay telefonku la damiyay buu yiri arintaas marka lacagtu ma lacag madax furashahay ahayd oo laga dalbanayo qofkaas idin sheegay masa wax kale ahayd muxuu idinku sheegay lacagta laga dalbaday cadad miyaa jiray laga dalbaday qofka adugu hadal aan isqabanayn oo markaas annagana dareen ugu dhilay macni walaalku wuxuu noo sheegay in la weydiiyay lacagtii baabuurka taraaga aad ku gadan lahayd soo shubaalay wiil marka arrinta qariib bay nagu noqotay baabuur taraaga oo sheekhu de baabuurta ma iibin jirin haddaan iska mala awaalo oon caqli ku yara darmo waxay u ekaan dad marka waxaa noo sawirmaya qof haysta oo de telefonka rabaan iska wacayo isku dayay in maaragtay ay sheekhi isaga dhigaan saas oo kale wata arrintii baadigoobka aan dib ugu soo laabana sheekh boolisku baadigoobka ma idinkula jireen mase adinku dad Soomaali ah oo is abaabulay iyo dad ehel ah sheekha ayaa baadigoobka ku bilowday bilayska runtii kama aanan arag wada shaqayn sida aan rabnay taariikhdana dhex martay kolkaan qiimeeyo oo magaalada Columbus dhalinyaro badan oo Soomaaliya xabada lagu dilay oo anigiiba masaajid weyn director u ahaa oo bil gudaheed 4 wiil oo xabada lagu dilay meydka gacantayda ku meeray marka bilayska runtii rajab badan oo inay si degdeg ah dadka laga tirada badan yahay ay ula shaqeeyaan kamaanaan qabin haddana saas oo tahay intaa waa la shaqeynayay oo tiim baan la saarnay oo laamaha amniga intaa hawshoodu way socotay laakiin annagu isma baanaan halayn oo maaragtay qofkii u dambeeyay soo wacay iyo baabuurkii inaan raadinaan galnay waxaa iyadana intaa raacda oo dareen nagu abuurtay walaalka markii la soo wacay saacad kadib in FaceTime oo muuqaal video ah ay xaasku noo sheegtay in iyadana lagu soo wacay laakiin wejigiisa una ay aragtay wax hadal ahna ay ka weyday kadibna la damiyey labadaa marka shirkeena aan ka dhex sheegnay dareen bay nagu abuurtay waxayna nagu maaragtay qasabtay inaan dedejino maaragtay baadigoobkii iyo saas oo kale sababta sheekh aanu baadigoobaynana waxay ahayd baabuurku maadaama baabuur weyn yahay uusan garaashada guryahan Mareykanka geli karin waxaan qadaraynay banaanka iyo inaan ku arki lahayn haddii marka baabuurka aan helno in hawshanadii 80% ay fuli lahayd saasaan aaminsanayn waana sababta dad fara badan aan xirfiyada magaalada oo dhan runtii looga shaqeynayay waxaa iyadana mudan sheekh inaan kuu sheego
dadka soo helay baabuurka bifadlillahi tacaala ee hawshan soo helay ma aha bilayska waa tiimkii annagu aan dirnay Soomaaliyeed weeye dadka baabuurka arinta helitaanka ayaan rabaa sheekh marka waxaa igu maqaalo ah in goobta laga helay meydka sheekha subaxii hore ee saaka dadka baadigoobka wada ay mareen oo uusan oolin meydka waxaa la leeyahay duhurkii wixii ka dambeeyay ama galabta ayaa goobta la soo dhigay ma sax baa in meelaha baadigoobka aad ka wadeen ay kamid ahayd meesha hadda meydka laga helay laba qofba waan waraysanay dad yiri saaka fajarkii annagaa soo maray oo waxa ma oolin iyo qof kale walaalka baabuurka helay wuxuu kamid ahaa walaaladii shaqaynayay waan la fadhiisto oo anigaaba waraystay walaalku meesha uu degan yahay runtii wuxuu ii sheegay inay ahayd meel mar walba dareenka qabay oo dhismo ku socda oo de iska cidla ah oo qofka dareen ku abuuri karta marka mar walba waan eegi jiray yiri haddana maadaama warqadii baabuurka ku sawirnaa gacanta ku hayay isagoo salaada marka usoo degdegaya ayuu ma aragtay yuu arkay salaadu marka salaadii casr baa musawir salaadii maghrib wuxuu usoo degdegay salaada uu usoo degdegay walaalku waa salaadii casr weeyaan maanta marka masaajidkana dee muxaadara ka jirta uu soo orday marka wuxuu yiri markaan dhaafay anoo eegayaan dareemay wax jaalo ah inaan arkay gaariguna midabkiisu jaalo ahaa dib baan usoo noqday buu yiri kolkaan usoo noqday in xaqiiqsaday gaariguna gaarigii yahay waan argagaxay buu yiri meeshana meel markii horeba aan dareen ka qabay oo baabuurta jaqafa lagu soo tuuray ahayd walaalku marka wuu ka yara fogaaday meesha isagoo taxadaraya baarkin buu galay meeshii wuxuu ka soo wacay tiimkanagii aan abuurnay raggii maaragtay hogaanka hayay sidii bay walaaladu marka ugu soo carareen walaaladu markaas waxay arkeen in sheekhu meydkiisa uu meesha yaalay gaariguna uu kii ahaa aniga ila soo xiriireen oo shir ku jirna masaajidka sidii baan anna meesha ku imid kadibna bilayskii baabay kaga soo horreeyay aniga bulshadii oo markaa ka soo rogmatay laba janaazoon maanta lahayd xabaashi baa laga sheegay sheekha in la helay kulli meeshii bay sidii ku yimaadeen masaajidii iyo ummaddii sheekha raadinaysa dhan marka meel la kala istaagaa sheekh marka helitaanka walaalka helay ma isagoon u dhowaanin oo aan xaqiijinin inuu isagii ama gaariga markuu arko keliya uu soo wacay mase intuusan boolisku imaanin way xaqiijiyeen in isagu oo meyd ah uu gaariga ku dhex jiro oo ay dul istaageen maya walaalka u horreeyay gaariga arkay wuxuu anigaba ii sheegay markuu arkay meel cidla ah iyo gaariganuu yaala markiiba wuu argagaxay siduu ii sheegay wuuna ka soo fogaaday meesha baarkin buu galay kadib buu wuxuu wacay walaaladii kaluu ku yidhi baabuurkii baabuur u eg oo meel cidla ah looga tegay yaan arkaa sidii bay ugu yimaadeen laba walaal oo sheekha ehelna la ahaa adugu maaragtay meheradan ganacsina ay ka dhexeeyeen oo hawshkale hormuud ka ahaa yaa markiiba meesha yimid waana labada wiile meyd ka arkay noo xaqiijiyey annagana iyagoo runtii ooynaya oo walbahaarsan oo bedelan baan meesha ugu imid anaga markaa ku xigo imid marka meydku gaariguu ku dhex jiray sida la leeyahayna rasaas baa ka muuqata soo ma meydka dhulka in laga helay iyo inuu gaariga ku jiray runtii ama hadda ma xaqiijin karo oo annaga lafteedu waan argagaxnay markii waxayse u badan tahay in maaragtay dhulka uu yaalay waa sida aan u badinayo mase xaqiijin karo middaa rasaas in lagu dilay iyo in kale walaaladu noomaana sheegin walaalku in maaragtay dee qof la dilay waxaanba sheegeen waxa arrintaas sheegi karon ka sugayna waa qolada dambi baarista oo meesha markii allah u naxariisto waa dhintay sida la cadeeyay booliskii markii ay meesha yimaadeen oo aaggii dhan ay xireen muddo saacadaha ay baarayeen goobta ayaa joogtay adigu wax hadala baarayaasha ama boolisku nafsad ahaantoodu ma idin siiyeen oo ku aadan baaritaanka hordhaca ah oo ay sameeyeen wax hadal ah oo idinku yiraahdeen ma jirtaa ka bulsho ahaan iyo ka maamulaashii isku masaajida ahaan xagga xiriirka iyaga in lala hadlo ama saxaafadaha ingiriiska uga hadlo xagga masaajidana anaa u qaabilsanaa xagga communitygana waxaa joogay hormuudka bulshada ee Somali community Xasan Cumar gudoomiye Xasan Cumar adigu
wax markaa hordhaca oo warbixin koobana uuna siiyey laakiin mar walba iyagu waxay ku